haddii muuqaalada TikTok, Facebook, Instagram ama YouTube jeclaan lahayd inaad ku dhigto taleefankaaga isticmaal CapCut oo habka ugu fiican ee aad muuqaal ku hagaajin lahayd ama ku dhiggareyn lahayd taleefankaaga ka waran sawir hagaajinta dabcan waxaad isticmaali kartaa Snapseed oo aad si fudud ugu dhiggareyn karto sawiranta kala duwan ka waran socod hagaajinta ama duubidda isticmaal Easy Voice Recorder oo ku ogolaanaya inaad codkaaga ku duubto kuna dhiggareyso si fudud taleefankaaga si la mid ah waa anoo Careef Cabdi iyo muuqaal kale oo ku saabsan abiska ugu fiican ino marshana saaxiibaya let's go haddaad ka hesho daawashada aflaamta isticmaal Ocean Stream oo aad si fudud oo free ah uga daawan karto aflaamta kala duwan ka waran si animaha dabcan waxaad isticmaali kartaa Anime FanTube oo aad ka helayso aflaamta kartoonka ah ama animationka ah qaab fudud oo free ah haddaad tahay muuqaal duube jeceshahayna inaad hesho muuqaalo bilaa kalar ah ama raw ah waxaad isticmaali kartaa Motion Cam oo ku ogolaanaysa inaad si fudud u duubto muuqaalo raw ah si fududna aad ugu kalar gareyn karto barnaamijka aad wax ku dhiggareyso haddaad jeceshahay inaad qurxiso taleefankaaga korna u qaado bilicdiisa isticmaal H-Light oo ku ogolaanaya inaad animationskan aragto marka aad cod ama hees dhageysanayso haddaad saabkan ka helin waxaad isticmaali kartaa Movies Edge oo hab la mid ah balse ka UI qurux badan ka hadlida quruxda isticmaal Ultrapic oo aad ka helayso sawiraan ama wallpapers aad u qurux badan kuwaas oo aad saaran karto shaashada hore iyo tan dambe ee taleefankaaga ugu dambeyntiisa isticmaal Aurora Store oo aad ka helayso application kaste oo aan ku jirin Play Store maca salaama saaxiibaya